ولينا waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni hidaha iyo dhaqanka aan ugu talagalnay maanta inaan ku soo bandhigno waana Jubba Somali Community ururka ama groupkan idin soo bandhigay bandhigan quruxda badan ee galabta waxaan rabaa markan inaan u yeero Muuse Dalmar oo isagana inooga yimid magaalada Stockholm kana mid ah aboommada iyo saaxiibada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هتسكاله إنه سورة جديدة إنه فرصة نحلنا بقولنا كان سكون مادنا مر لبعضنا حكوا فرحسنا هاي واللي بقى قارنا أدو فرحسنا هاي يعني يتبوني مادو ومركي لبعض يعني مادو مجالنا أنا مركي كوانة كل سوغانة لما باي كل أنجارو أنا جالية Jubba community si gaar ah u mahad celinayaa walaalkay Bilaxaashi iyo waliba jaaliyada Jubba iyo waliba dhamaantii gacan ka geystay inay hawshan soo qaban qaabiso ama ay kulankan inoo habayso haddaan ka gudbaynaga waqti ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay inaan guda galo bal waxaana maanta idin hayo Soomaaliya waxay tahay meel aan ka kacay aad fadhiisay niman culus baa meesha marayo waxa oo leeyahay inaan wax badan sheegay laakiin si hadda bal toba taagtii u rumadaay waxaan hayaa aan idin wadaago haddaan marka hore iskii mar magacayga waxa weeye Muuse Maxamed Ciise Muuse Dalmar waxaan deganahay arday ka ahay kana shaqeeya magaalada Stockholm oo aan maanta ka nimid caawina hadii la yiraahdo aan ku caraabi doono halkan waxaan idin wadaagayaa sawir xusuuseed aan jecelahay inaan idin wadaago waxaan madax ka ahay urur la yiraahdo Hidadawr Somali Culture and Literature ama ururka hidaha iyo suugaanta ama dhaqanka suugaanta Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hidadawr oo xaruntiisu tahay magaalada Stockholm waddanka Sweden inta badan waxaan bil kastaba joogtay inaan kula suugaaneed kan oo kala qabanno anagoo soo casuumino qorayaal ama abwaano nala degan Stockholm ama bay Sweden ama baad waqti noo saamxo ka baxsan waddanka Sweden oo aan dibadda ka casuuno walow inta badan ay u badan tahay reer Sweden badan oo waddanka Sweden anigoo soo wareejiyay riwaayadan waan soo baxday oo la magaceega Tayabeelka caruurtu waa buutooya marka waxaan tagnay ilaa 14 magaalo ay Youtube maanta 14 magaalo tahay oo Sweden ah marka sawiradaasi waa samida Fekho waa Khalaftio waa Stockholm waa Linköping waxa weeye Borlänge marka waxaan soo marnay 14 magaalo taa ku 13 magaalo oo soo marnay marka bishii baa laba magaalo saddex magaalo inta badan tagnaa annagoo u bixinay kulanka oo inta badan ay weheliyaan walaaladay Sayid iyo Maxamed Xirsi waxaan u bixinay tabliiqa afka Soomaaliga ma nihiin anagu runtii urur ama dhaqaale gaar ah cilsiiso ama dawlad dirtay laakiin se rag istirayo iyo jeebkooga hadii ay safar galayaan iyo hadii meel tagayaan isdabara oo istire baan nahay waxaan u dhisnay intii taalkiina waxaad bulshada qaban karaysaan la wadaaga idinkoo waxaad haysaan bulshada gaarsiinaya si aad afkaar iyo ray cusub uga heshaan wixii ay sameysay ummadina u gaadho marka runtii maalmaha aan fadhinaan shaqada ama shaqooyinkayaga aan bariiska kala soo baxna ka fadhino ayaan labada cisho fasaxa ku beegnaa inaanu la wadaagno jaaliyadaha Soomaalida ee degan waddanka Sweden taas waa taas waxaan qoray buugay koowaad waxaan qoray oo la yiraahdo Hantaaqa Jacayl oo baabka dhalinyarada malaha Maxamed iyo dhinaca suugaanta iyo magaalo culus bay ka hadleen buugay koowaad waxaan qoray 2010kii waa buug ka sheekeynaya qiso jacayl ah oo ka dhacday una dhaxaysa ama ka dhacday magaalada Hargeysa iyo magaalada Muqdisho xilli ku siman tabayaaqadii sideedamaadka waa qiso runtii dhab ah laakiin se inuu soo gudbiyo marka taas waa taas nasiib daro buugaas oo wax nuqulaa ka hayn laakiin waxaan jeclaaday inaan idin wadaago waa wax soo saarkaan soo kordhiyay buugan labaad waxa la dalka maada waa buug aan ku soo ururiyay in ka badan 200 oo sheeko isku jira sheekooyin kuwa dhacay waqtiyo hore waqtiyo dhaxo xilliga magaalada iyo waliba waqtiyada dambe inta dambe qurbaha nimid sheekooyin maad oo dhacay haddii aan hal sheeko ama laba sheeko soo qaato inta buuga ka gudbin waa buug runtii wehello noqon kara qurba joogta ama dadka inta badan gooliyo ku dhacay tabiyada dareemay waddankii ka soo maqan
علماء أنت بروح إلى أما علماء أنت بروح سايس كنت خسوا واحد على قصة واقعي كم إذا عافمات كو وفوق كقصة البلية أيوة كاي عافمات بلية قصة علم اللي بقف حلق لهاي قرون وراني هذا لكن سو كعمر بتاعي وكاي نور في هذا مركب شيكو أن نقص وقاض بوجا كنت شفتوا كده عليه ميجا حلو كوباجا كون يسأل بقولي لبعتن كي حلو يوسف عبد الله حسن هل كان كيس دراويش السعودي أيها ملمية واحد عيسى أوري البادية هو ده وإلا تدبعت تنشر مس تنشر أيها إسلام تيو قوي لما يسأل هاي قانونية مركب اللي ما تصير هاي واحد الله سينا يا ما ولا كينيا قبل حكسي سرو إن أنت إسلامتي لما تعمل إن أنت لما تي ولا شيء اللي يرد بالوكان مركب نصيب دور غير كم يجوبين إن جشانتي يا ما بقول قالوا إن مركب هذا ودمرسان كره واحد ماشي لكانه قبل يار وده ده يرتاح تبجيرو ما لا بيتوجه ملاسو أول ما نجمع يعني تسمع واحد كان إن عينا هذا يوسف وريتو وهي كتير سنة حاجة لكن إذا هول دمر ولا دون ولد وقت جميل يجوحني وسيدنا يرون لا يأكله وكرسله مركب مدمر كي أسيس عتي ودور سنة شوكتي ويلن تيزي بعلو كوريي ديلن تيزي بعد من عيد لو حاس كيسي أيام مركب ويناتي ويصير دمر ما كيليسه أيوة حاجة ولا تيجي مركب درك التوضي تنشره يا يرى شيء تنشره ولا قياسي كنا ولا يقول هذا كاسي ماشي كسي بحيو يريا لكن سووا بدنا مركب هورك بقى لو وقفوا وحياة بدنا نورش سنة كان غادي كرمها وكردوخ ونعيب ونعيبته مركب أضيقي مركب المدة الجوجي أيوة وقت وتح قبل وقت قاعد يصير أيه أضيقي هوش يسيب عنده قصة بحبه مركب قلب أما بقول في دو حوالي اللي سيو أرداقي لفرديو أيه أضيقي أرداقي فرديو ولي كل جسوه ما يا وش كبودي هالكلام بكي مريسو أيه أضيقو إنان تاني ولي إنان عربي سنتين لليلية ما هي وين وحي وهولو وشيء ولا شو حكى بريه ونقول رأيه مركز تا وين حاجة كذا نبغونه وحي هنا أشر كي ثوان قالي مدلني هذا ولا يا قلت لك أنت لا يلا وقت قاعد شوفت وهذا كذي لما تمنات الشو الشنو ده هو جرانتي سوا بس أنا كانوا فكرة إيش ولو الشنو ده أي عمل باينة جرانتي هاي لوج جلايو لكن يسوي درامي مرة إن أنت هذا ما كفكر كان قاعدة يمتسي كسرعتي أيها هذا يوديو مرد موت عليه أيها إن أنت يرد على سوي لير شو تبشريه أيها هو يرد سبب يرد سبب كسر سا وده قر عويسنا وساعد توكل لينا يكان بس أنا إنسان حاجة كاره كاسو يصير لا يا مرد بكرة يا هاي مكسر ده حاجة كاره وين يروح الحشور سو إما كده كان يوفر فرمي وين ده دوق ده حق الله يو سيتو سامع على سكون مرات شيء كله سيمال ده ده سو هي واحد الدماغ بتم كذا مركز هاي مركز ده كاره قال لي لاينه مركز لا أنا قلت قال لي يقول كويس عبد الله حسن دبي واحد مركز واحد تصير رنتي وعية أما بفكرك أي بقى شوفني يو مرة واحد كوي I'm so okay لأني honestly إن لو يا واج بقول سنة كذب حدي عندي استناد عندي بعد شو سنة ينام كسومالي واحد دريمي كذا فكر كأنه أما نولشين هيد برجس مقدار صوت هذا هل شايفه كل يوم المجال كذا عليه هذا سوق قطعي نور جاري شايفه المجال كذا حلي كنت ميلي كوب بيجن أيام مجال هذي سومر دي ورثة شرامة ما دام بس يرموه مركا فيلم أيام داون شريو فيلم كان مركا كل أسبوع مرايا الله داو أيام مركا كل أسبوع مركا نين قالوا يمكن مجال كتشوف إسكا حمالة تدا أولي جا أرجع سو مرايا الله داو ما فيلم لقى داو أي أدري سكة بطي مجال دي في سينما يا لقى فريش سينما يبقى كتير كان ما أنت بس نيو ما صوت جابس سويت سينما بسوق قاتي سينما بسوق قلي ما سينما بسوق قلي ما بسوق بينما حلو الصعود فيلم كون لو يلاقى بويجا قولي كوفيدا يفرضه كتير مريك فيلم كابويجا صعود سوق بينما حلو وحكو سوق بينما ما كنت تقول سوق وسط سوق قلي هول كيلر دود زي هاي إن فرد لقول تقالم يسيف لقول تقالم ما كسو سوق قلي بقى فردية وحي سودا تشيلي يا يوم مودي ده واحد رنوا يمكن تقالم كسر وانا دريمي كنت هذا ماشي ومرادي وين ما كسر حاجة ولا كده يعني واحد ما قولي سنة كلا هذا ما قولي دور صف وتشيلي ودعاية ما كسر حاجة بودي وكتشر يالو مير بلاد ولا يقدر نختار مالك markii la kaba maantii labaad ayaa wuxuu soo maray soo qoriyo ku tukawaya maqaayadu inta badan ku shaqayn jiro ay qolay badan ay yaqaanaan fadhiyaan
مركزها وكذا واريا عبد هاي وادي عادي هاي محاك وراح يصير وارقولي حالي فردو شنو ما كنت شنو كان واحد وكذا كذا ما أنتنا ما بالكين إنه كذا ولا واحد بس ما فيس نبغي يدوم ما يخلص عنا وقطن ولا إحنا صنعكوا نعم تحلى ردنا أوكي هاي وحمر بقى كذا المسائل نروش يسوي بدليسو تيو قربان ويتبوني هاي السوري بالي يقول لك سي يتبوني هاي باور ما هي حافظ هاي باور جاي